dadka ku nool tuulada Mareerey oo qiyaastii ilaa iyo 4 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay ka cabanayaan burburka ba'an ee ka jira wadada xiriirisa Balcad iyo Mareerey sidaas si la mid ah waxa ay ka cabanayaan dadkaasi biyaha wabiga ee calowga ah iyo sidoo kale isbitaal la'aanta ka jirta tuulada Mareerey oo hoos timaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Xaaji Aadey oo ah gudoomiyaha tuulada Mareerey ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlay dhibaatada ba'an ee ka jirta tuuladaasi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah gudoomiyaha tuulada Mareerey waxaan macnaha waqtigan xaadirka meeshan aan ka cadeynayaa in oo wadadii gawaarida mareysay ama gaariyaalka ama isgaarsiinta aheedoo ay naga go'an tahay oo sida u arkaysiin oo muxuu ahaa sidaas ay u go'day oo bajaajyadii muslimka marayay ay mari karin oo dhibaato aad iyo aad u qabaan taasoo keentayna waxa waa jiilaalka oo wadadii u hagaagsaneen oo wadadii sameys u baahan tahay iyo waxaan ka hadlayaa biyihii oo calow ahoo ilaa baa iskala ceel ma qabno ceelkii waaye maba nala sameynin oo ceel hadda ka hor macnaha wax yar noola qodiyo dhammaystir u baahanna waxa waa sidiisuu ku xanaban yahay weli dhammaystirka ma haysano waatanoo macnaha nugu qalafayso inaan biyihii calowga ahay aan markii la soo arooro aan sugno ilaa muddo oo 3 saacadood ka bacdi le macnaha martida noo timaada ama dadka noo yimaado waqtigaas ka bacdi le biyo siino waxaan u baahnaan lahayn ama ceelkin waa u baahnaan lahayn haddii noo la helayo waxaan waa u baahnaan lahayn muxuu makiinada oo biyo safeynto oo safeys waa u baahnaan lahayn anigoo ah gudoomiyaha Mareerey macnaha shacbiga Mareerey ku nool dhibkaas oo aad iyo aad u baaxad weyn ay qabaan marka waxa waaye taasaan karjeena heeda wax qabadka iyo muxuu ahaa ilaahay xaqiisana taasaan karjeena marka inay wax nagu soo dhiibo xaq alle inay waxna laga soo dhiibo marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaasi kadibna qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku nool tuulada Mareerey ayaa waxa ay iyagana baaq u direen hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala gudaha dalka in si degdeg ah ay dhibaatooyinkan wax uga qabtaan. maanta aan taagnahay wadada tuulada Mareerey isgaarsiinteeda inay go'an tahay bajaadiha iyo baabuurta noo soo mari karin waxaan u baahanahay hay'adda caalamka inay taas naga taakuleyso oo dhibkaas oo nagu haysto wadada oo tuulada Mareerey soo gasho inay habeena u baahanahay in la habeeyo wadada isgaarsiinta oo ka soo baxda degmada Balcad oo ku timaad ilaa imku dheer waa naga haleysan tahay 100% aad iyo aad waxa jecelnahay hay'adaha gargaarka in ma aragtan nool arkaan sida unku aragna nool arkaan oo wadada ma aragtan nool sameeyo marna biyo ma aragtan nool soo biyo wabiga soo fataaxa marna maxay lahaayeen wadadii marka jiilaalka la gaaro dhulka carcad way boora ma aragta ka kac baabuurta ilaa iyo 1 saac meel loo socohay waa riixnay ayagoo saas loo riixana tuulida ma aragtan ma tagaan teedii kale waxa ku daraa wabiga biyaha waxa cabuhayna bi sidii rinji oo kale ma aragta u gaduudan ayaa cabuhayna dhibaatada ku jirno tooyayar ma aragta ma aha hada ilaahay naga bixin oo hay'adaha caalamka gargaarka hada naga bixinayna kama bixini biyaha ilaa 2 saac 3 saac la sugaa marka wabiga laga soo daro oo guriga la keeno ilaa ay ka dago ayaa biyaha ma aragta oo loo sugaa hada xilku yimaad ah bera bi u siisid ma aragta ma laha taastii ma aragta oo biyaha waaye waxa u baahanahay ceel oo degdeg in caalamka ma aragtay hay'adaha gargaarka naga soo gaaraan oo ceelkaas ma aragtay oo la keeno. Cabashadan ay muujinayaan dadkan ku dhaqan tuulada Mareerey oo hoos tagta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku soo aadaysa xilli tuulada Mareerey ay ka jirta dhibaatooyin badan waxa ayna dalbadeen in wadada xiriirisa Balcad iyo Mareerey ay ka jiraan burbur badan iyo in tuulada aysan lahayn wax ceel biyood ah isbitaal iyo sidoo kale iskuulo.